kulanti wacan u wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhowaada janalka murtida iyo maaweelada ee garaad koriye toddobaadba sheekooyin kala duwan ayaad kala socotaa. sheekada toddobaadkana waxay ku saabsan tahay gabadhii ayadii dagtay. ma isweydiisay oo ma ku doonaysaa inaad ogaato sababta ka dambaysa gabadhan yar ee kelideed dariiqa lugaynaysa maxay tahay? salladda ay xambaarsan tahay waxaa ku jira waase ayo qofkan aan dad iyo bahalka toona ahayn ee kelidii guriga cidlada ah ka dhex qurinaya. haddii aad doonayso inaad taa ogaato ku soo dhowow garaad koriye. aan ku bilaabo ee waxaa jirtay beedhii hore gabadh yar oo qoorcas lo odhan jiray. sheekada qoorcas ayaa ku bilaamatay gabadh yar oo ayeydid jecleed. had iyo jeeraale waxay booqan jirtay guriga ayeedeed ay ku nooshahay. ayeedeedna maalin maalmaha ka mid a wakhti jiilaal dhaxan darani soo dhacaysay ayay u toshay inantay ayeeda u tahay koofiyad cas ooy dhaxanta ka xidhata iyo roobka. maadaama ay mar kasta xidhan jirtay koofiyadda ayeedeed u toshay ee cas ama guduudan waxaa loo baxshay qorcas amba qorguduud qofba siduu u yaqaano. weligeed ma tuurin koofiyadda ayeedeed siisay ixtiraam iyo xushmad weyn oo ayeedeed u haysay. waxay sidoo kale ayeedeed u samayn jirtay hadiyado iyo waxyaabahay caruurnimadeeda ku madadaalato. waxyaabahay ugu jecleedna waxaa ka mid ah xasuusaha ayeedeed ay siisay koofiyadda magaceedaba badashay ee ay qorguduud kula baxday. wakhtiyada ka mida ayaa ayeedeed bukootay. hooyadeed ayaa u dhiibtay salladay ugu shubtay cabitaan iyo rooti iyo weliba keeg ama doorsho ay u dubtay. waxay ku tidhi haddii aad ayeyda intan u geyso laga yaabaa inay ku ladnaato. si toosa guriga u aad dariiqana meel laha ku leexanin. ayada iyo duurka bahla dadcuna ayaa jooga. waddada ayay sii haysay. meel dhaxana waxay gabadhii yareed kula kulantay dacawo dadcun ah. dacwad ayaa ku tidhi xaggaad u socotaa? gabadha yareydna waxay ugu jawaabtay ayeydey oo xanuunsanaysa deganna xaafadda 12 ayaan u wadaa keeg doorsho iyo cabitaan. dacwada ayaa markiiba tidhi waa fikrad wanaagsan. waxaan cuni karaa inanta yar laakiinse haddaan labadoodaba cuna ayay ka sii wacan tahay. waxay ku fikirtay in marka hore ay ayeedeed cunto ka gadaalna ay gabadha yar ka cunto. waxay ku tidhi haddaad ayeydaaba xanuunsanaysa cabitaan iyo kaagu waddo maxaad ubax halkan uga soo guri weyday? baleeg duurkan ubaxyada kala duwan ee quruxda badan lee ku yaala. gabadha yareedna khiyaamada dacwada waxay mooday run oo waxay soo gurtay ubaxyo kala duwan. intii ubaxa ku maqnidna dacawadii guriga ayeedeeda u tilmaantay ayay uga soo horumartay. kadibna waxay cuntay oo ay mar kaliya liqday ayeedeed. wayna seexatay say isaga dhigta ayeedeed. kadibna sariirtii ayeedeed ay ku jiftay ayay ku seexatay say isaga dhigta ayeedeed. gabadha yarna markay timaado ay u cunto. kadinka ayay ka soo gashay. way salaantay balse cidina salaantii kama qaadin. kadibna hare ayay u soo socotay. waxay aragtay qof ayeedeed u eg haddana ka duwan oo jiifa. waxay ku tidhi ayey maxaad u leedahay dhegahan waaweyn ee kaa soo baxay waa maxay? markaasay ku tidhi waxay iga soo baxeen saan adiga si fiican kugu maqli karo. markaasay yaabtay. waxay tidhi maxay yihiin indhahan waaweyn ee aanad lahaan jirin ee kaa soo baxay? waxay ku tidhi waxay iga soo baxeen saan si wanaagsan kuu arki karo. haddana markaasay yaabtay. waxay tidhi waa maxay gacmahan dhaadheer ee kugu yaalay aanad lahaan jirin ee kaa soo baxay? markaasay tidhi waxay iga soo baxeen sidaan adiga kugu dubo keeg iyo macmacaanka aad jeceshahay. haddana way yaabtay. markaasay tidhi waa maxay afkan weyn ee micyahale aanad lahaan jirin ee kaa soo baxay? intii mar keliya xanaaqday bay tidhi wuxuu iga soo baxay sidaan adiga kuu cuno. kadibna dacawadii xataa gabadha yareed ayay liqday. markii ay gabadha yar iyo ayeedeed balliqday ayay hurdo baani qabatay. kadibna way seexatay. waxayna ku dhufatay khuuro weyn oo laga maqlayay dhulkoo dhan. nin ugaarsade ahaa oo agteeda maraya ayaa khuurada dacwada ka yaabay. waxau yidhi waxaa sida tan u khuurinayaa bilaadan maaha.
kadibna gurigii ayuu soo galay. markiina wuxuu arkay inay tahay dacwada dilaaga ah ee dadka cuni jirtay. waxuu doonayay inuu madaxa ka toogto, haddana waxaa markiiba ku soo dhacday fikradda ah in laga yaabo inay dacwadu cuntay islaantii halkan ku nooleed ee duqda ahayd. waxau yidhi intaan dili lahaa marka hore caloosheeda ayaan jeexayaa si aan u ogaado waxay la quurinaysa caloosha ugu jira. kadibna dacwadii oo hurda ayuu caloosheeda jeexay. waxaa ka soo baxday inantii yarayd. kadibna ayeedeed labadoodba waa wanaagsan yihiin oo wax dhibaato ah ma qabaan. isla markiiba dhagxaan ayay soo gureen oo calooshii furnayd ee dacwada ayay uga buuxiyeen. ayeedeedna irbad intay soo qaadatay ayay caloosha u toshay. dacwada ayaa markii ay toostay istidhi hadda baxso orad, balse dhagxaantii caloosha ugu jiray ayay qaadi kari weyday. kadibna intay dhimatay ayay dhacday. ayeedeed iyo ugaadhsaduhuna way ku farxeen siday dacwada u dhimatay, waxayna uga mahadnaqeen siduu u badbaadiyey ugaadhsaduhu. gabadha yarna waxay ayeedeed u ballan qaaday inaysan weligeed ka leexan doonin amarka waalidkeed siiyo. waxay sheegtay in wax kasta ay ku bilaabmeen khaladkii iyadu ay gashay ee ahaa inay amarkii hooyadeed maqli weyday ee ay ku tidhi dariiqa ha ka leexan, cidna ha la hadlin. waxaan sheekada tan ka baranaynaa markaan amarka waalidkan khilaafno dhibaatooyinka aan ka dhaxli karno. intaynu tan iyo toddobaadka ku xiga sheekatan la mida isugu imanayno, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. haddiise sheekadan aad ka heshay ta ku xigtana aad doonayso inaad daawato janalkana garaad koriye ku soo biir, subscribe iyo like basar. talada tusaale waxaad haysana commenti noogu dhaaf. tan iyo kulatidana dambe nabadgelyo. garaad koriye ma isweydiinaysaa sababta ay gabadhan yidhi xilliga habeenbadhka ah kelideed u taagan tahay aygan cidlada ah? maxayse tahay sababta ka dambaysa inay xidiguhu soo daateen? haddii labadan su-aaloodba aad isweydiinayso doonaysana inaad ogaato waxa ka dambeeya, ku soo dhowow garaad koriye uu ka bogo sheekada oo dhammaystiran. aan ku bilaabo ee waxay ahayd beri hore ayaa waxaa jiray gabadh yar oo kelideed cidlo mudatay ka gadaal markii labadeeda waalidba ay dhinteen. waxay weyday ciddar yeesha geerida waalidiinteed, kadibna waxay mudatay leelleel iyo taageero la'aan. qabriga iyo xabaasha hooyadeed iyo aabbaheed ayay dul iman jirtay, halkaasoo ay ku libdheen wehelkii ugu dambeeyey ay nolosheeda haysatay. cidina ma taageeri jirin, iyana ma aqoon meel kale ay nolosheeda qabato. waxay ku noolayd waxa kulba dadka arka ay siiyaan. maalin kastana xabaasha waalidkeed ayay dul iman jirtay, way ka dul ooyi jirtay, waxayna saari jirtay ubax. manaysan aqoon sababta ay uga tegeen. may lahayn gabadhan yari guri ay degto iyo sariir ay ku seexato toona. inta badanna waxay weheshan jirtay qabriga waalidiinteed. waxa keliyay haysatay waxay ahayd rooti ay siiyeen dad ka naxay baahida daran ee gabadhan yar haysay. iyada oo murugaysan ayay iska dhaqaaqday intay allaheeda tala saaratay. manaysan aqoon meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto toona. muddo markii ay socotay ayaa waxay ay cidlaa kula kulantay wiil gaajaysan oo baahi darani ka muuqato. wuxuu ku yidhi ma isiin kartaa rootida aad wadato? gaajo daran ayay haysaa. tun naxariis badan ayay ahayd iyo rootigii keliya iyadaba la siiyey ayay siisay. wayna isaga dhaqaaqday, waxaanu ku yidhi alle ayaan waxsan ku weydiinayaa. hare ayay isaga sii socotay. meel kale markii marayso ayay la kulantay isna wiil kale oo cidlo taagan, caleemo iyo roob ku daadanaya oo xanuun iyo elerji ka leeyahay ayaa ciilay. wuxuuna weydiistay inay siin karto koofiyad oo ku xidho dabaysha dhacaysa. tii keliya ay xidhnayd ayay gabadhan yari siisay. waxay ahayd tu naxariis badan, inkasta oo aysan iyaduba waxba haysanin. meel kale oo isla ayada ka mida ayay kula kulantay gabadh yaroo dayacan oo feedho qaawan. waxayna u bixisay funaanadii keliya ahayd
ee ay xidhnayd si ay dhaxanta uga gashato. kadibna waxay la kulantay wax yar kadibna waxay la kulantay wiil kale oo isna aan haysan surwaal uu gashado. intay ka naxday ayay u bixisay surwaalkii keliya ay gashanayd. wax yar kadib isla ayga markii sii socotay ayay haddana goob kaleoo cidla ah kula kulantay wiil yar oo dhaxamoonaya shaar u gashadana aan haysan. xilli habeene ayay sii noqonaysay waxayna tidhi kolleyba waa gabaldhac cidina ay arki mayso wiilkan yar ee darxumaysanna aan shaarhkayga u bixiyo. kadibna shaarhkii keliya ee ay gashanayd ayay wiilka yar siisay iyada oo qaawan gobolkuna dhacayo ayay iska dhaqaaqday. wax yar kadib markii mucjisooyinka intaa leeg ay samaysay ayaa waxa mar keliya soo daatay xidigaha. markii ay dhulka soo gaadheenna waxay isku beddeleen dahab sida roobka oo kale u soo da'aya. haddiiba ay gabadha yari kor eegtay oo indhaha kala qaadayna waxay aragtay in dhan walba dahab ka daadsan yahay oo gosheeda ka buuxo. waxay sidoo kale mar keliya aragtay iyadoo ku labisan dhar xariira oo aysan aqoon meel uga yimi. laheed ayay aamintay oo ay tala saaratay wixii keliya haysana waxay siisay dadkii u arkaysay inay iyada ka baahi badan yihiin. waxayna gabadhii yarayd ee darxumada iyo murugada la ciilanayd ay noqotay tan ugu taajirsan deegaanka ay ku noolayd. waxay abaalmarintan heshay markii ay iska ilowday dhibta iyada haysa oo ay ka naxday dhibta ummadaha kale hay. sheekada tanna waxaan daawada ka baranaynaa naxariista iyo isku damqashada dhexdeedna abaalka aan ku heli karno.